هيا شيخ عبد الرزاق. هيا شيخ جو اهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشيخ عبد الرزاق إمام مسجد أبو بكر سياتل waxaan maanta joogaa Mina waliba waxaan hor taaganahay teendooyinkii ay deganaayeen mujaahidii ka soo xajiyay Soomaaliya. waxaan hortanada aan taaganahay lambarka 141 oo ay Soomaalidu in badan oo kamid ay degan yihiin. midda koowaad Soomaalida meesha la dejiyo oo ay Mina ka degaan kamid ma aha xuduudda Mino, kamid ma aha, waa meel ka baxsan xuduudda Mino oo Musdalifa ka tirsan. saa darteed hadday daruuro ahaan ku degeen oo culimmadu ay yiraahdeen daruuray ku degan yihiin, haddana waxaa jirta dhibaato khaas ah oo ayaga haysto teendooyinkii loogu talagalay iyo makaatibtii waday iyo dadkii mas-uulka ka ahaa in aynan meelna ayna dejin. dadkii in badan oo ka mid a ay bannaanka seexdaan. meeshaanaad u jeedaan qashinkan iyo meelahan aad u jeedaan iyo biyaha iyo bulaacadda dhexdeeda ah inay dadkii seexdaan oo ay ku rafaadsan yihiin. waxaa dhacday dad badan oo odayaal ah oo lacag ilaa 3,800 laga soo qaaday inaanan laga warqabin meeshay ku dambeeyaan, inaynan haysan meel ay degaan, inaynan haysan wax xajkooda u sheegaan. waxaan la kulannay oon aragnay oo shalay aan aragnay oday weyn oo buuraha kaba ka soo xajiyey oo xataa aanan aqoonin inuu Carafo istaagay in kale, xataa lacagha laga soo qaato acmaashii xajka ee qofka waajibka ku ahayd aan ka wax tusay ma lahan. dadku waa rafaadsan yihiin, aad baa loo dhibaataysan yahay. عموما Soomaalida ka soo xajisay Soomaaliya khaas ahaan shirkadaha waaweyn sida shirkadda Jubba oo kale iyo Daala iyo dadkii ay waleen dhibaatooyin fara badan baa ka jiro. waxaan dhammaan muslimiinta u sheegaynaa meel kasta ay joogaan dhibkaa inay ogaadaan. xujaydana waxaan u sheegaynaa in ay xajkooda ku dadaalaan. wax hago oo xajka u sheega hadday waayaan inay ayaga iscaawiyaan oo ay jamaraadka iyo acmaasha say u gudan lahaayeen ayaga ay iska caawiyaan insha Allahu tacaala. wajazaakum Allahu khayr. والسلام عليكم.